بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبضي داوديال ومركلي برنامج كيني وحكبرو تاريخ الصحابة oo aad alaaba ka daawataan keebilka ama TV-ga astaan barnaamijkani daawadayaal waxa aynu ku falanqeynaa hada jeeraale oo aynu ku soo qaadanaa hadba mid ka mid ah saxaabadii nabiga ilaahay raaliha ka hada dhamaantooda geesiyaashii muslimiinta kuwii taariikhda galay kana galay baal dahaba hore waxaynu uga soo hadalnay taariikh nololeedkii saxaabigii qaaliga ahaa Muscab ibn Umayr. maanta haddii Allah awood u ogolaado casharkeenan oo ah kii saddexaad waxa aynu kaga warrami doonaa biidnillaahi tacaala isna mid kale oo ka mid ah geesiyaashii muslimiinta. waa saxaabiga caanka ahaa aan maartay la hilmaami karin taariikhdiisa waa Abidar al-Ghafaari radiyallahu tacaala canhu. waa saxaabiga Abidar la yidhaahdo oo ku aroora ama ku nisba sheegta reer bani Ghafaar qabiilkii la odhan jiray ee ka mid ah qabaylka Carbeed. waa taariikhdiisii oo kooban geesiga ah ka mid ah geesiyaashii muslimiinta, saxaabiga qaaliga ah ee ka mid ah saxaabadii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo runtii taariikhdiisa markaynu eegno oo aynu akhrisanno oo aynu dhageysano waxyaabo fara badan oo nolosheenna runtii wax badan ka qaban kara aynu ka faa'iideysan karno. taariikhdana daawadayaal taariikhda sideedaba waxaa loogu talagalay in wax laga faa'iideysto xilliga la joogay iyo mustaqbalkaba in laga faa'iideysto waxyaabihii dhacay marka laga sheekeynayo, yani mustaqbalka waxa soo socda in laga faa'iideysto ayaa la doonaya. taariikhdu daawadayaal maaha keliyata wax lagu madadaalsado ama lagu caweeyo maaha, laakiin waa wax duruus iyo cibar iyo wax ku qaadasho runtii laga qaato. saxaabigan Abidar ilaa raalaha ka haday Jundub ibn Junaada ayaa magaciisana maartay lagu magacaabi jiray. qaabkii uu islaamay iyo qaabkii uu diinta islaamka u soo galay ayaynu ku bilaabaynaa. isaga la fahantiisa ayaa daawadayaal inoo warramaya. wuxuu leeyahay maartay Abidar ilaa raalaha ka haday waanu soo baxnay aniga iyo si gaar ah wuxuu leeyahay aniga iyo walaalkay oo Unays lagu magacaabi jiray iyo hooyadayo ayaa soo baxay maalmaha ka mid ah. Unays ayaa dabeetana walaalkay abay wuxuu igu yiri magaalada Maka ayaan dan ka leeyahay iyo xaajo iyo baahi isiisug aan dhaqaajiyo oo aan tagay. waan u ogolaaday si aan uga sii reebade xoolihii iyo waxyaabihii marka ay haysteen dabcan meel baadiya bay ku nool yihiin. dabeetana wuxuu yiri diyaar baan ahay anaa ka sii reebay xoolaha ee dhaqaaji. walaalkii Unays waa uu tagay magaalada Maka ayaa uu markaa galay gudaheedii, laakiin muddo ayaa uu ku nagaa oo uu markaa waxa ku habsaamay. Abidar ba hadlay wuxuu leeyahay markii uu yimid walaalkay Unays waxaan ku yiri maxaa ku xanibay ama maxaa ku habsaamiyay ee aad muddada dheer runtii ugu maqnayd. walaalkay Unays waxa uu yiri waxaan arkay oo aan la kulmaynin maartay sheeganaya inuu rasuul yahay oo la soo diray oo magaalada Maka jooga. ninkaasaan la kulmay marka ninkaasaan muddo bal warkiisa iyo maartay hawshiisa sida tahay ayaan wareysanay kaasaan ku habsaamay. Abidar ilaa raalaha ka haday ayaa waxa uu yiri Unaysow ninkaasi dadku maxay ka lahaayeen? dadka markaad eegto waxyaabahay ka aaminsan yihiin ama dadku waxay ka lahaayeen bal hadda ka waran. markaas wuxuu yiri dadku waxay lahaayeen waa faaliye ama waa gabaya ama waa sixroole. ereyada caynkaas oo kala ayaa ay ku tuurayeen oo ay ku sheegayeen. dabeetana wuxuu yiri maartay waxa weeyaan waa Unays ba hadlayay wallahi oo dhageystay buuri oo waa aan dhageystay warkiisa. markii aan dhageystayna horta hadal gabaya ee lama muuqdo maxaa yeelay gabaygu baxriyada ku socda ama badaha gabayga kiisu ma aha buuri. marka waxaan u akhriyayaa gabay ma aha oo gabay lagu ma sheegi karo. waana waxaan isleeyahay buuri markan eego in uu wax yahay oo wax runa uu yahay iyaguna ay been sheegayaan waa kuwa ka soo horjeedee. ninka la yiraahdo Abidar saxaabigaas ilaa raalaha ka haday ayaa wuxuu ku yiri walaalkii Unays weli maartay arrintii gamaad kaafin oo ninka iyo waxyaabaha ku saabsan xog badan oo ku saabsan oo aan doonayay weli ma hayo adigu xoolaha iga sii reeb aniga aan dhaqaajinaya. sidii bay ku heshiiyeen waa u baxay markaa
unays waa ula sii dardaarmay wuxuu ku yihi abidarow walaal waxaan kugula dardaarmaya markaad magaalada maka gasho dadka magaalada maka aad bay uga soo horjeedaan ninkan maaragtay waxa weeye waanay u cadhaysan yihiin weliba weerar adagna way ku hayaan baltaxadaro digtoonida muuji abidar ilaa raallakaad wuxuu leeyahy waxaan weysada u biyeystay safar dheer inaan galo dabcan waa safarkii hidaayada iyo hanuunka sabab u noqon doona waa uu soo baxay waxa uu soo galay magaalada madiina dabcan waa nin qariiba cid haba yaraata uu ka garanaya ma jirto sida uu sheegay isagu waxa uu yihi waxa aan maaragtay daciibsaday ama aan yaraystay nin ka mida quraysheed oo kacbada agteeda fadhiya bimacnaa nin aan isli ninkana malaha waxa weeyaan iska miskiina oo aan waxba ku yeelayn bal hadda inaad isaga markaan wax weydiiyo ayaan ugu talagalay dabeetana waxaan ku yihi su-aal baan weydiiyo ninkan aad ku sheegtaan inuu yahay saabi bimacnaa waa kii diinta ka siibtay ee ka baxay ee ku tilmaantaan magaciisa lale maxamed bal hadda ii tilmaan halka uu joogo halkii ninkii dabcan maaragtay waxa weye nin dabcan gaalada ka mid a ayaa u ahaa maaragtay halkiibaa markaa lagu tilmaamaa in uu markaa waxa weeyaan isaga lafahantiisii dadka loogu yeedhay deetana isagii la dhibaateeyey oo dagaal lala galay waxa uu leeyahay dhibaata laygu sameeyey muddo habeenne iyo maalmo dhan taarikhyaanada waxay ku sheegeen 30 maalmood iyo 30 habeen oo dhan inaan magaalada maka ku sugnaa anigoo aan waxna cunin waxna cabin keliyaata ay cunto ii tahay waxa weeyaan biyaha zamzamka ilaa raallaha ka hado habeenada ka mid ah oo weliba habeen dayaxuna uu buuxsamay oo 14aad uu yahay ayaa wuxuu leeyahay waa bidare oo weliba dadkuna ay hurdaan gaar ahaan quraysh ay hurdaan ayaa waxa aan maaragtay waxa weeye la kulmay 2 dumar ah ama 2 haweena oo dawaafaya kacbada iyaga oo baryaya 2 sanam oo la kala odhan jiray isaaf iyo naa'ila dabeetana waxaan ku uri waa maxay waxaana baryaysaan ee aad samaynaysaan dabeetana waxay yidhaahdeen dee 2dan ilaah ee 2da magac kale leh ayaanu baryayna arrintii wuu ku ceebeeyey asnaamtiina waxbuu ka sheegay waa abidar ilaa raallaha ka hado dabeetana 2dii hablood waa ay dhawaaqeen oo waxay ugu yeedheen maaragtay waxa weye baroorteen dabcan oo dadkii ka ag dhowaa ee ehelkooda ahaa ama gaaladii kale ayay ugu yeedheen halkii baa lagu qabtay ninka lale abidar alkhafaari ilaah raallaha ka hado dabeetana markaas halkii waxa weyan lagu garaacay oo dhibaato markaa lagu geystay waxa uu leeyahay abidar ilaah raallaha ka haday nabiga caleyhi salaatu wasalaam ba anigoo sidii ku sugan xaaladeedu inay sidii tahay ayaa uu kacbada maalmaha ka mida yimi isagoo markaas u dawaafay kadibna uu tukaday marka intaas sameeyey baan markaa u tegey waxaan ahaa buu leeyahay waan salaamay markaa waxaan ahaa qofkii ugu horeeya ee salaama bitaxiyati ahli alislaam dabeetana wuxuu nebigu yihi caleyhi salaatu wasalaam calayka waraxmatullaahi miman anta salaantii buu ga qaaday yaa tahay adigu oo maaragtay bal hadday sukay sheeg wuxuu yihi waxaan reer bani khafaar qabiilka la yidhaahdo nin ka soo jeeda oo ka dhashay ayaan ahay nebigu caleyhi salaam sida saxaabigu sheegayo gacantiisa ayuu af ka saaray isagoo oo maaragtay dhabanka ayuu gacanta saaray dabcan isagoo aad iyo aad ula yaaban oo la tacajibsan ninka halkan yimi ee maaragtay waxa weye yimi dabeetana wuxuu yihi waxa aan isiri malaha qabiilka aad ku nisbe sheegatay iyo reerka aad sheegtay ayuu malaha karaahiystay dabeetana waxaan doonay gacantiisa oo dhabanka ku hayo inaan dhabanka ka qaada laakiin gacantayda iska ka dhuftay dabeetana waxa igu yihi ilaa intee in leeg ayaad halkan ku sugnay oo aad joogtay waxaan ku yihi halkan waxaan joogay 30 cisho maaragtay waxa weeye 30 habeen iyo 30 maalmood ayaan ku sugnaa magaalada maka markaa wuxuu weydiiyey su-aal oo maxaa aad quudan jirtay ama maxaad cuni jirtay waxaan ku yihi wax kale cunto ah ma heli jirin marka laga reebo biyaha zamzamka oo aan ku noolaa hadhi habeenba markaasaa nabigu wuxuu yihi caleyhi salaatu wasalaam haah waxa weye biyaha samsamka mar haddii aad heshay inahaa mubaaraka waa biyo barakaysan wa inahaa طacaamu طucmin waana wax lagu noolaan karo oo cunto noqon kara cidda ilaahay u barakaynayo abubakar ilaa raallaha ka hado nabiga caleyhi salaatu wasalaam kaaga dhawaaba nebi allow waxa weye ii ogolow in aan martigeliyo ninkan oo aan kaxeeyo si uu aniga iila noolaado sidii buu sameeyey nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waa dhaqaajiyey abubakar iyo abidar saxaabigii lasoo dhoweynayay qariibka ahaana waa ay wada joogeen gurigii abubakar baa lagu martigeliyey ilaa uu muddo halkaa uu joogay ugu dambeyntii ayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu usoo bandhigay islaamnimada waanu aqbalay oo towxiidka ayaa uu qaatay oo waa uu rumeeyey xaqi
waxaanu markaa yidhi nebi allow maxaa aad i faraysaa oo aad i fari lahayd waxaan ku farayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam mar haddii aad rumaysay in aad islaamnimadaadana iska qarsato reer bani khafaar ama qabiilkii aad ka dhalatayna aad dib ugu laabato oo aad iyaga xaqa iyo tawxiidka ugu yeedho sidii baanu markaa sameeyey waxa weeyaan taarikhyahanadu waxay xusaan inuu markii uu laabtay ee uu dib u noqday ee uu ku noqday waxa weeyaan reerkiis iyo tolkii dad aada u fara badan inuu soo islaamiyey oo maalintii madiine nebiga caleyhi salaatu wasalaam u hijrooday ayaa uu soo galay isagoo qabiilkiisii iyo weliba qabiilooyin kale oo la jaar ahaa ama la meel ahaana isagoo wada oo dhammaantood ay xaqa iyo diinta soo galeen dawadayaal qisada islaamitaanka iyo qaabka ku islaamay abidar alkhafaariyi radiallahu tacaala canhu waxaa isna axaadiis dhowra ama dowra ku soo aroray riwaayada bukhaari ama warinta bukhaari iyada haddii aan eegno xule imaam albukhaari raximah llahu tacaala xadiiska saxiixa uu kusoo wariyey saxiixiisa abidar alkhafaariyi markii ay soo gaadhay warka sheegaya nebiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inuu kasoo baxay magaalada maka hadda waa bilowgii horebe war iyo waxayna uu uga yimaado xagga samada ayaa uu markaa walaalkii soo diray oo yihi bal ninkaa hadda hawshiisa iisoo ogow walaalkii markii uu kusoo noqday war ku filan iyo macluumaad ku filan oo uu ka doonayey ayaa uu ka heli waayey kadib isagaa markaa baxay oo dhaqaajiyey magaaladii maka tegey wuxuu leeyahy magaalada maka markaan sidaa usoo galay maaragtay waan raadiyey cid ii sheegtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam meesha uu joogo welibana wada xilli la baqanayo waana bilowgii hore islaamka waa xilligii la qarsanayey dacwadana aan kor loo qaadin deetana wuxuu yihi magaalada maka ayaan soo galay anigoon cidna ka garanahaynin oo maaragtay waxa weeyaan nacayana dadka inaan weydiiyo waayo khatarta meesha ka jirta ayaan garan karaa dabeetana isagoo kacbada iska fadhiya ayaa wuxuu leeyahay waa riwaayadan bukhaariye waxa i gartay cali bin abi aalib ilaah raallaha ka hado oo i gartay inaan ahay nin qariiba oo magaalada ku cusub oo soo galootiya markii uu markaa i arkay wuu i weydiiyey oo wuxuu yihi maxaad maaragtay waxa weeye tahay oo xaggeed ka timi aniguna taxadar badan baan samaynayo waa aan qarinay halkiibuu maalin iyo lababa maaragtay waxa weeye runtii aan ku sugnaa ilaa maalintii saddexaad aakhirka ugu dambeeya igu soo maray meeshii anoo weli jooga oo halkii ku sugan cali bin abi aalib ilaah raallaha ka haday wuxuu i weydiiyey oo yidhi maxaa kugu dhacay oo cid maaragtay waxay ku martigelisay iyo cid hawshaad u socotay maxaa yani muddo halkan ayaad ku sugnayd maxaa qaldan oo kugu dhacay dabeetana waxaan ku idhi bal isukay sheego bal hadda war ishiibu markaa cali ka dalbaday waxaan ku idhi buui warka ku siin maayo ilaa iyo aad ballan ila gasho ballantaas oo ah arrintayda inaad qarin doonto dhibaatana aanay iga soo gaari doonin markaan kuu sheego waxaan u socdo cali bin abi aalib ballan rasmiya ayaa uu la galay waxaanu ku yidhi ballan ayaa dhexdeenna ah in aanan wax dhibaato ah maaragtay waxaweye ku soo gaarhsiinin warkaad ii sheegteen inuu aniga igu koobnaado oo xogay ka baxaysa aanu noqonin dabeetana wuu u sheegay wuxuu ku yihi waxaan u socday nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam baan doonayey nasiib badana cali bin abi aalib oo muslimiinta ka mid ah ayaa ay kulmeen cali bin abi aalib sida taariikhda ku xusan waxau yihi anaa ku geynaya halka uu joogana anigaa garanaya isoo raac laakiin idaba soco anna waan ku hor soconaya halkaan maraba iga daba mar marka cali baa horkacay muddo waxay sii socdeenba waxay kolba sekadaha iyo gidaarada kala duwan isku sii toosiyaanba way khatar badan baa jirta ugu dambeyntii waxay u galeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam markii nebigu ay u galeenna waa la soo dhoweeyey dabcan halkiina tawxiidka ayaa loogu qabtay sidii baanu markaa ku islaamay saxaabigan ilaah raallaha ka hadee muddo kadib markii nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu sidaa u rumeeyey waa abidar ayaa wuxuu nebi allow markaa maxaad i faraysaa waxaan ku farayaa buu ihi inaad qoomkaaga ku noqoto si aad xaqa iyo tawxiidka aada ugu baaqdo wuxuu ihi sidaa yeeli maayo laakiin islaamnimada waan ku dhawaaqayaa oo waan muujisanayaa dabeetana isagoo tiisii ku adkaysanaya ayaa uu magaalada galay maka kacbada lafteeda ayaa waxaa la sheegaa inuu kaga dhawaaqay ama muujistay inuu islaam yahay oo uu diinta galay taasina waxay sababtay in isaga dhibaato shakhsiya lagu sameeyo oo qurayshtii meesha joogtay ee odayaasheedii iyo dhallinyaradeediba ay markaa ku boobaan oo nabaro badan runtii ay gaadhsiiyaan iyada oo markaa la dilayo oo la garaacayo ayaa waxaa ku soo baxay saxaabada nin ka mid a oo raggii odayaasha ah runtii ka mid ahaa waa cabdilaahi bin mascuude isaga oo leh ninkan miyaa garanaysaan aada dilaysaan dabeetana waxay ku dhahdeen may garan mayno oo maaragtay waxa weeyaan cidu yahay dee ma naqaano
wuxuu hi waa ninkan reer bani khafaar qolada la yidhaahda ayaa uu kasoo jeedaa, hadda waa dariiqa, waa nimanka degan iyo reerka degan halka dariiqa ganacsigu idiin soo maro. marka shaam iyo yeman yacni ganacsiga dariiqa uu soo mari jiray reerka iska leh ee degan weeye. haddii aad dhibaatada ku samaysaan maanta, hadda ogaada waa nin qabiilka ka dhashayoo ganacsigiina iyo safaradiinu khatar bay ku jiraan in lala wareego ama la boobaba, maadaama ninkan aad disheen. si markaa waxa weye aargoosi ayaa idinku dhici doona. deetana markii halkii ay marayso ayaa ay sii daayeen oo ay faraha ka qaadeen. saxaabigan ilaah raalliha ka hado, isaga oo maaragtay sidaa ugu cusub islaamka ayaa haddana muujinaya ilaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam mar kale haddana isagoo magaaladii jooga u bandhigay in uu arrintiisa qarsado, dabeetana uu dhaqaajiyo oo qoomkiisa dib ugu laabto si aan magaalada maka loogu dhibaatayn. ugu dambeyntii waa u aqbalay qabiilkiisii reer bani khafaarna waa u tegey, isagoo oo ka bilaabay islaamnimada iyo tawxiidka inuu soo bandhigo hooyadii iyo walaalkii iyo ciddii kale ee ka agdhoweyd, dhammaantoodna ku qanciyey in ay diinta soo galaan. xataa iska dhaaf kuwaase reer bani aslam qabiil kale lo odhan jiray, reer bani saalim qabiil lo odhan jiray ayaa uu iyagana u bandhigay oo uu ka codsaday inay diinta soo galaan, iyagana uu saameyn badan runtii ku yeeshay. waxa uu maqnaadaba muddo kadib waa sanado markii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam magaalada maka ka tegey ee uu qabtay magaalada madiine oo ay kuba ballansanaayeen. markaad aragto arintayda iyo diinta oo horumar samaysay iyo arinta aan wado oo maaragtay xaqa oo cadaada, markaad aragto noo kaalay ayaa marka horeba ballan ku wada galeen. marka markii la hijrooday madiine la tegay, muslimiintuna ay awood yeesheen ay wax iskaga dhicin karaan, saldhigna ay yeesheen ay sirtooda iyo xogtooda ay ku qorsan karaan, ayaa uu markaa abidar alkhafaari ilaah raalliha ka hadee isagoo oo wada reerkiisii iyo reerihii kale ka agdhowaa ee islaameba isagoo horkacaya ayaa magaalada madiine yimi. waa lasoo dhaweeyey. markii hore daawadayaal keligii buu ahaa, iminkana boqolaal iyo kumanaan tiro badan ah ayaa uu hogaaminaya oo wataa isagoo sabab u ahaa inay diinta ilaahay iyo nuurka islaamka inay soo galaan kana baxaan mugdiga ay leedahay gaalnimada iyo iimaan darradu. daawadayaal halkiibaa markaa lagu soo dhaweeyey. saxaabigani wuxuu ahaa saxaabi qiimo badan, tilmaamo badan oo la yaablana ku sifaysan. waxaa lagu yaqaanaa zuhdigiisii iyo sida aanu dhaldhalaalka adduunyada iyo maaragtay macmacaankeeda aanu shaqo isagoo ugu lahayn. maalin maalmaha ka mid ah dardaaran nabiga caleyhi salaatu wasalaam baa hore dardaaran u siiyey. imaamu axmed musnadkiisa xadiiska uu kusoo warinay min xadiisi abidar radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay, abidar isaga laafahantiisa hadla wuxuu leeyahay, amaranii khaliili sala allahu calayhi wasalam, saaxiibkay waa nebi maxamede wuxuu ifaray 7 arrimood ayuu amar igu siiyey. wuxuu ifaray inaan jeclaado masaakiinta una dhowaado iyaga. waxau ifaray inaan eego dadka iga hooseeya ee aanan eegin kuwa iga sarreeya xagga adduunka marka la eego. waxaa kaloo uu ifaray inaan qaraabada inaan xidhiidhiyo walow iyaguba hay jaraan oo hay daba jeediyaane. sidoo kale waxa uu ifaray inaanan cidnaba waxba weydiisan oo aan ka kaaftoomo dadka waxa gacmahooda ku jira. waxau kaloo ifaray nebiyullaahi maxamed oo saaxiibkay ah buu leeyahay abidar weeyaane, xaqa inaan ku adimo qaraarhba ha ahaadee wixii xaqa inaan sheego. sidoo kale wuxuu ifaray inaanan mid canaantii uga baqanin xaqa inaan sheego oo aan tilmaamo. anoo cid ka habranaya xaqa inaanan sheegi waayin oo aan iska aamuso ayuu maaragtay waxa weye iyadana ifaray oo aanan aamusin dabcan anoo cid ka habranaya ee aan xaqa sheega dabcan. sidoo kale wuxuu ifaray maaragtay hadal inaan farabadiyo hadalka ah laa xawla walaa quwata ila billaah. ereygaa inaan ku celceliyo dikrigaas ayaa uu ifaray, maxaa yeele fa inahunna min kanzi taxta alcarshi, sidaa uu markaa sheegay. nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidaa uu kula dardaarmay, dardaarankaa waxaa la odhan karaa sidiisa ayuu u fuliyey. waxaana laga arkay noloshiisa oo dhan ina uu fuliyey noloshiisii qiimaha badnayd ee aada iyo aadka u qiimaha badnayd. waxaa markaa uu maalin maalmaha ka mid a isagoo magaaladii madiine jooga, waxaa la sheegaa inuu magaaladii madiine yimi isaga oo maaragtay waxa weeyaan koox ka mida quraysheed oo markaa hadlaysa oo muslimiintii quraysheed ka mida oo fadhida ayaa u soo galay. idaa jaa rajulun akhshana thiyaab, dabeedna markuu soo galay waxa weeyaan waa abidar isagoo maryihiisu ay iska haylhaylan yihiin oo aanay maryo maarata aan wanaagsanayn runtii uu xidhan yahay. dabeetna wuu dul istaago wuxuu ihi bashir alkanizina biradfin, dadka wax kaydsanaya waxa weeyaan xoolaha ee aan waxbana ka bixinayn ugu bushaareeya naar
iyo inay cadaab geli doonaan naar lagu maaragtay waxa weeyaan inta safeexada laga dhigo waxa weeyaan dabeetana lagu dhalaaliyo dhabaradooda iyo wejiyadooda hadda ku bashaaraysta wayudac calaa nacdi katafayhi dabeetna markaa waxa weeyaan maalinta qiyaamahana ciqaab ku noqota. halkii markay marayso ayaa markaa waxa weye saxaabada nin ka mid a hadlo wuxuu yihi ninka la yidhaahdo abadar ow hadda waa saxaabadii nimankani xoolo ayay haystaan waa run laakiin waxa weeyaan maaragtay dee way la yaaban yihiin sidaad ugu ceebeynayso ama aada ugu dhaliilayso xoolahay haystaan iyo qaabka adag ee aada ula hadashay. waxa ku yihi innahum laa yacqiluuna shay niman wax garanaya oo wax fahmaya maaha maxaa yeelay waxani waxa weeyaan maaragtay waxa weeyaan in ay bixiyaan oo aanay waxba kaydsan oo aanay adduunyada islaam raacin ayaan anigu kula talinaya. marka ninka halkaa taaganayso xagga suhdiga marka la eego ayaa u ahaa oo marka waxa ilaa iyo dhibashadiisana aynu ka arki karayno. abidar ilaahay raalliha ka hadee sidaa maaragtay nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu kula dardaarmay mar kale ayuu dardaaran siiyey nebigu caleyhi salaatu wasalaam. dardaarankaasoo nuxurkiisa ahaa inuu dhowrsoonaado oo su-aasha iska ilaaliyo, sidoo kale sabirka iyo dulqaadka iyo adkeysiga inuu yeesho, fitnadana inuu ka dheeraado hadiiba ay dhacdo oo ay xilligiisa soo gaadho. wuxuu leeyahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam maalmaha ka mid a ayaa fuulay gaadiid waa ximaar waa dameere anigana waan fangashanaa oo dameerka ayaan la fuulay. dabeetna wuxuu igu yihi abidar ow ka waran dadka oo dhan haddii ay gaajo iyo macaluuli ku dhacdo oo aad maaragtay waxa weeye awoodi kari weydo inaad ka kacdo gogoshaada si aad masaajidka ugu soo tukato bal maxaad samayn lahayd? waxaan ku yihi ilaahay rasuulkiisa ayaa og. dabeedna wuxuu yihi nebiga caleyhi salaatu wasalaam tacafif waad dhowrsooni baan ku faraya markay arrintaasi dhacdo. wuxuu yihi nebigu caleyhi salaam abidar ow ka waran dadku haddii ay aada u dhintaan ama xanuuno ama gaajaba hadlaysa ay aada u dhintaan oo meydka meel lagu kala aaso la waayo maxaad samayn doontaa? wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisa ayaa garanaya oo og. dabeetna wuxuu yihi isbir sabir oo adkayso. wuxuu yihi abidar ow ka waran dadka oo dhan hadday isdileen fitna dhacdo oo muslimiinta ay qoorta iska wada guraan bal hadda ka waran oo waxa weye dhegta dhiigga laysu daro maxaad samayn lahayd? waxaan ku yihi ilaahay rasuulkiisa ayaa yaqaana oo og. dabeetna wuxuu yihi gurigaaga fadhi albaabkaagana soo xidho fitna weeyaane faraha ka qaad oo iska ilaali. dabeetna wuxuu yihi haddii aad markaa waxa weeyaan haddii aan ka tegi waayo arrintaa oy suuragal noqon weyda bal hadda ka waran oo aan maaragtay meel aan kaga baxsado aan waayo. dabeetna nebigu wuxuu ku yihi caleyhi salaatu wasalaam tolkaa iyo baadiyihiinii ayaa dib iskaga noqon doontaa oo waad ka tegi magaaladan. wuxuu yihi hubkayga miyaan sii qaataa? dabeedna wuxuu nebigu haddaad hubkaaga sii qaadato oo aad hubkiiba qaadato inaad ka qayb gashay oo aada la mushaarakaysay ayaa ay markaa noqonaysaa. haddii ay markaa waxa weeyaan naftaadu khatar gasho oo xataa seef lagula soo baxo si uun inaad uga baxsan karto isku day, laakiin adigu hala walaaqanin oo fitnada ha kala qaybgelin. ilaah raalliha ka hadee taariikhdiisa markii gabagabadiisa ama noloshiisa markay sii dhammaanaysay waxa uu ka dhexbaxay dadka oo dhan isagoo meel cidlaa runtii oo maaragtay rabda la odhan jiray maaragtay waxa weye ku gaar noqday oo halkaa muddo dheer joogay. imaamu axmed musnadkiisa wuxuu ku warinayaa wuxuu leeyahy abidar markii ay geeridu kusoo xaadirtay firaashkii mowdkana la seexiyey ayaa markaa gabadhiisii oo la joogtay dabcan ayaa oyday. dabeetna wuxuu ku yihi maxaa kaa oohinaya gabadhay? waxay tidhi waxa weeyaan waxaan la ooyayaa annahu maaragtay gacan iyo waxba kuma tari karo, wax alla waxaan ku tari karaa maanta ma jiro, xataa mara aan kugu kanfo oo markaad dhimato aan kafan kaaga dhigana ma hayo. wuxuu yihi ha ooyin maxaa yeeley waxaan maqlay rasuulka ilaahi caleyhi salaatu wasalaam oo maalmaha ka mida yidhi annaga oo meel wada joognaa annaga iyo rag kaloo saxaabada ka mid a ayaa uu nebigu yihi caleyhi salaatu wasalaam layamuutanna rajulu minkum intiina halkan fadhida mid ka mid ah ayaa waxau ku dhiman doonaa dhul lamadegaana oo cidlaa. dabeetana isaga oo bartaa ku dhintay ayaa koox ka mid a muuminiintu way u iman doonaan oo way soo xaadiri doonaan janaasadiisa. waxaan u malaynayaa arrintaasi in ay dhab tahay, waayo dhammaan ciddiina la joogtay maalinta way wada dhinteen marka laga reebo aniguna waa aniga bartan cidlada ah ku dhimanaya. ilaahayna dayaci maayo koox ka mid a muslimiinta ayaa i-aasi doonta oo ii iman doonta. dhaqaaji oo baxo bal dariiqyada iyo maaragtay wadooyinka inugu dhow bal hadda waxa weeyaan eeg dad bidhaan bal soo bidhaami dad soo socday safaro iyo dad meesha maraya.
maxaa yeelay waxaan aaminsanayay buuhi warkaas inaanu been ahayn oo maaragtay xaqiiqo yahay ayaan rumaysanahay. haweeneydii way baxday iyada oo markaa waxa fiirinaysa ama badhaaminaysa dadka meelahan maraya. dabeedna waxay heshay koox ka mid a muslimiinta oo safar markaa ku jira oo socod ku jira. nimankii bay joojisay. dabeetna waxay ku yidhaahdeen yaa tahay? waxay tiri dadka qof muslimiinta ka mid a ayaa bartan ku dhimanaya oo ay naftu haysaa. kafan maaragtay inaad kafan maaragtay maraan ku kafaysiiyaan ayaan doonayaa inay siisaan, isla markaana ajar ilaahay idinka siiyo. dabeetna waxay yidhaahdeen oo waa kuma? dabeedna waxay ku tiri waa abidar, saxaabigii la odhan jiray. dhammaantood aad iyo aad bay u murugoodeen, iyagoo ooyaya ayaa ay markaa waxa weeyaan ku bilaabeen gaadiidkii ay wateen geeli iyo wixii la midka inay gowracaan oo ay markaa maryahoodii iyo alaabihiina oo dhan ay ku wareejiyaan. abidar oo isaga lafahantiisu dee sakaraada laakiin naftii aanay ka bixin ayaa markaa waxa weeyaan wuxuu yihi bushaaraysta, horta kooxdii la sheegayey ee nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam ayaa tihiin, weydkan ii yimi waayo nebigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam maaragtay waxa weeyaan koox ka mid muslimiinta ayaa aasi doonta ninka caynkaas oo kale ah oo iman doonta. halkiiba markaa ayaa ay muddo la joogeen. waxaanu markaa ka codsaday abidar weyaan wuxuu yihi kafanta iyo alaabta ay siinaysaan horta anu wax kale idinkama baahni, ninka kafana siinayana waa inaanu noqonin nin amiira ama madaxnimo shaqo luku leh, waayo wuxuu ka baqanayaa dadka hadda jecel madaxda ah waxaa marar badan loo tiiriyaa inay xoolo ay soo galaan si qaldan usoo galo ama si xaaraana inay kasbi xaaraana usoo galo ayaa inta badan maaragtay waxa weeyaan la filaa ama la filayaaba, si ilaa qof ilaahay dhowro oo ilaaliyo oo isaguna islaaliyo runtii mooyaane. marka abidar alkhafaariy waxa uu ka digto marka waxa weeyaan wuxuu aad iyo aad uga sii warwaraya mara xaaraana in maaragtay waxa weeye oo hantida dadweynaha ee xoolahoodii ah in waxa weeyaan lagu kanfo oo kanfo looga dhigo ayaa uu ka dagaalamaya. bal hadda dadkii hore saalixiintaha sida ay iskaga ilaalin jireen xaaraanta ayaynu daawadayaal arkayna oo aynu ka qaadanayna. wuxuu ku nin amiiri waxa weeyaan wixiisa anigu ma rabo in laygu kanfana ma doonayo. dhammaantood waxaa la sheegaa inay wada ahaayeen dad amiiraa ama dad uun lug ku leh maamulka iyo markaa xilliga oo qofo meel uun mid aabihi yahay mid walaalkii yacni midba meel inuu ka soo gelayay marka laga reebo wiil yar oo ka mid a qabiilkii ansaareed oo safarka la socday. kaasaa mara yara oo uu sitay markaa yidhi anigu shaqo kuma lihi amiirnimo iyo madaxtinimo, tayada maan ku siinayaa. taasaa dabeetana uu qaatay abidar. tanna wuxuu yihi markaa tanaa igu filan oo laygu kanfin doonaa markaan dhinto. sidii baanu ku dhintay. taariikhda waxaa la sheegaa inuu geeriyooday 31 taariikhda hijriga ama taariikhda islaamiga markay maraysay. qaarkoodna waxay sheegeen 33 in uu dhintay. waxa weeyaan cabdilaahi bni mascuud ilaa raalliha ka ahaadee ayaa ku tukaday. intaa kadibna maaragtay waxaana la sheegaa xilliguu dhintay inay ahayd xilligii uu amiirka muuminiinta ahaa cusmaan ibnu cafaan ilaahay raalliha ka ahaado. waxaa la sheegaa inaanu wax hantiya iyo xoolaa daawadayaal ka tegin. haddii laga tegi waayo maaragtay 2 dameerood iyo dameer 2 dameerood iyo dameer ayaa uu ka tegey iyo maaragtay waxa weye waxaan dhaamin runtii oo maaragtay hantiya. sidaasuu kaga intiqaalay adduunyada isaga oo noloshiisa ku dhammaystay daaci iyo dacwadda islaamka inuu ka shaqeeyo, isagoo noloshiisa ku dhammaystay tadxiya sacrifice ama nafhurnimo islaamka inuu sameeyo. sidaas ayaa uu ku dhintay isagoo noloshiisa ku dhammaystay in uu adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda in aanu qiimo badan agtiisa aanay ka lahayn ee ay qiimo badan la lahayd aakhiro iyo waxa dambeeya. ilaahay raalliha ka noqdo, muslimiintana khayr ha ka siiyo, ee khayrkii ugu wanaagsanaa hana la kulmiyo nebiyadii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii iyo saalixiintii, innagana kuwa haynala kulmiyo. daawadayaal, taariikh nololeedkii saxaabigii qaaliga ahaa abidar intaasaynu kusoo afmeerinaa. darsi kanoo kalea intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.